Guddiyada maamulada hay'adaha ugu waaweyn maaliyadda dunida ayaa waxay ku ammaaneen Soomaaliya shaqada laga qabtay isbedelada dhinaca dhaqaalaha iyo maamulka hay'adaha maaliyadda iyadoo duruufaha Soomaaliya ay yihiin kuwo adag. Labada hay'adood ee IMF iyo Bangiga Adduunka waxay ansixiyeen inay aqbaleen in Soomaaliya deynta laga khafiifiyo. IMF iyo Bangiga Adduunka waxay labaduba sheegeen inay tallaabadani muhiim u tahay in Soomaaliya laga saamaxo inta badan deynta lagu leeyahay oo ah 5.3 bilyan oo dollar. Agaasimaha hay'adda IMF Christine ayaa sheegtay in ogolaansho ay bixisay IMF uu yahay mid taariikhi ah. IMF waxa ay si cad u aqoonsanaysaa isbedelada dhinaca dhaqaalaha ee Soomaaliya samaysay muddadii ay kormeerka dhaqaalaha ay ku hayeen shaqaalaha IMF, ayay tiri Christine. Sidoo kale haweeneydan ayaa waxa ay sheegtay inay muhiimadda koowaad u tahay IMF in Soomaaliya ay marin u hesho tashiilaadka dhaqaale ee ay ku samayn karto kobac dhaqaale iyo faqriga oo hoos loo dhigo. Madaxweynaha Bangiga Adduunka David Malpass ayaa isna go'aankii soo baxay shalay kadib sheegay inuu ku faraxsan yahay in Soomaaliya si dhow ula shaqeeyeen isla markaana ay dowladda gacan ka siiyeen horumarka ay ka sameeyeen inay waddanka gaarsiiyaan heer deynta laga cafin karo. Geedi socodka lagu dhammaystirayo in Soomaaliya u hesho deyn cafiska wadamada faqriga ah ee deymaha culus lagu leeyahay in hawsha maaliyadda ee Soomaaliya ee hadda ay kormeer ku hayaan IMF looga soo baxo si lagu qanacsan yahay iyo in dowladda Soomaaliya ay dowladaha iyo hay'adaha deymaha ku leh ay deymahooda siiyaan ama ay kula heshiiyaan istiraatiijiyad looga nadiifinayo, ayuu sii raaciyay madaxa Bangiga Adduunka. David Malpass ayaa sheegay in Bangiga Adduunka uu kula talinayo hay'adaha horumarinta caalamiga ah ee hoos timaada IMF ee IDA inay iyadu ku cafiso deymaha lagu leeyahay Soomaaliya dhammaadka bisha February. Intaas wixii dheer ayuu yiri in Soomaaliya looga baahan yahay in waajibaadka saaran dhinacooda ay ka soo baxaan si ay u gaaraan heer dhammaystiran oo loo gaaro go'aanka madambeysa bisha Maarso ee sanadkan. Waxa uu sheegay in marka Soomaaliya gaadho heer dhammaystirka ah inay xaq u yeelan doonto deyn cafin aan shuruudi ku xirnayn marka la eego barnaamijka wadamada faqriga ah ee lagu leeyahay deymaha culus iyo weliba barnaamijka deymaha culus ee u dhigma kuwaas oo ay ku wada jiraan hay'adaha Bangiga Adduunka, Bangiga Horumarinta Afrika AFDF iyo taageerada IMF. Waxay intaasi ku daray in wadamada la isku yiraahdo Paris Club laga filayo in Soomaaliya siiyaan taageero ka sokow deyn cafinta. Barnaamijka wadamada faqriga ah ee deymaha culus lagu leeyahay waa barnaamij ay sameeyeen IMF iyo Bangiga Adduunka ay ku jiraan dhammaan hay'adaha lacagaha ee dunida iyo wadamada ugu tunka weyn ee deymaha bixiyo, kaasi oo qaamaha looga khafiifiyo wadamada ugu faqrisan dunida si looga yareeyo caqabadaha ka hortaagan kobaca dhaqaalaha iyo hoos u dhigidda faqriga. Ilaa hadda 36 wadan ayaa barnaamijkaasi hantay shuruudaha looga cafinayo deymahana ka soo baxay.